kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan qaramada midoobay ayaa qaraar ka soo saartay damaci dowladda Itoobiya ay ku doonaysay badda Saylac ee maamulka Somaliland ee dhawaan heshiiska is-afgaradka ay la galeen madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi iyo Abiy Ahmed oo Addis Ababa ka qabsoontay dagaalka diblomaasiyadeed ee labada dowladood ka dhaxeeya ayaa heer kulkiisa waxa uu gaaray meel sare dowladda Soomaaliya ayaa wada markaasi dagaal diblomaasiyadeed oo dhan kasta dhanka kale waxa looga cabsi qabay in labada dowladood ay markaa dagaalamaan dowladaha dariska iyo sidoo kale dowladaha caalamka midowga Yurub iyo dowladda Mareykanka iyo sidoo kale dowladaha jaamacadda Carabta ayaa gawi ahaanba ka soo horjeestay damaca dowladda Itoobiya ay ku doonayso badda cas isla mar ahaantaana deked iyo sidoo kale dhulba ay markaa ka doonaysay Saylac oo heshiis ay kula gashay maamulka aan weli la aqoonsan ee Somaliland ee hoggaanka uu hayo Muuse Biixi Cabdi si kastaba ha ahaatee dharbaax xun ayaa ka soo gaartay dowladda Itoobiya uu hogaaminayo Abiy Ahmed kadib markii qaramada midoobay ku dhawaaqday in jiritaanka iyo madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay mid muqadas ah oo lama taabtaan cid markaasi dowladda federaalka Soomaaliya aan ahayna loo hoos fadhiisan karin si kastaba ha ahaatee hadal hayntii baraha bulshada dhawaan tan isdhexmaraysay ahayd in dowladda Itoobiya ay ciidamada badda ay markaasi ay unkatay ay doonayso in Saylac maranbiyoodka badda cas ee markaasi iminkaba uu ka taagan yahay dagaalka u dhaxeeya xuutiyiinta iyo dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxa ay noqotay mid markaa madhalaysa oo aan soconin maadaama cod gacantaaga oo aqlabiyada lagu ansixiyay in dowladda Itoobiya talaabo cunaqabateyn la saari doono haddii dowladda Soomaaliya ay faraha la gasho arrimaheeda u gaarka dhanka kale dowladda Soomaaliya iyo mucaaradkaba waxa ay isla garteen ayna isla meel dhigeen sidii meel loogu soo wada jeesan lahaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed qulqulatooyinka iyo siyaasadda hoosana meel alla iska dhigo xilligan la taagan yahay loona midoobo sidii la isaga celin lahaa dowladda Itoobiya ee doonaysa in dhulka Soomaaliyeed ay qaadato inta dhiman horena ay ugu maqan yihiin dhul Soomaaliyeed oo baaxad ahaan la eg jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh iyo Xamza Cabdi Barre ayaa waxa ay wadaan dhanka kale ololo lagu diyaarinayo ciidamada militariga federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada iyadoona dhawaan lagu wado in halkaasi ciidan aad u tiro badan la geyn doono dekadda Saylac iyo sidoo kale deegaanada Luqaye xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa waxa ay iyagana dhankooda ku booriyeen bulshada ku dhaqan gobolkaasi Awdal in ay markaasi is abaabulaan lana qarameyn doono ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyana ay qayb ka noqon doonaan ayagoona la sheegay in loo fidin doono tababar dhanka militariga ciidamadaasi ayaa waxa lagu wadaa in dhawaantaanba lagu soo xareeyo xerada weyn ee Turkisom ee gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo markaa laga doonayo ciidamo kala duwan oo police iyo nabad sugid iyo military isugu jira haddaba xaaladani cusub ayaa waxa ay dharbaax kale ku noqonaysaa maamulka Somaliland oo sanadii aanu ka soo gudubnay gobolka Sool Sanaag iyo Cayn ay ka wada go'een isla mar ahaantaana dowladda federaalka Soomaaliya ku meel gaar ah u aqoonsatay maamul gooni markaasi kaga madax bannaan maamulka Somaliland haddii Awdal ay dowladda federaalka maamul u aqoonsato ayaa dhankeeda waxa dharbaax ku tahay maamulka Muuse Biixi Cabdi ee xilligiisu dhamaaday haddaba dowladda Itoobiya oo markaasi arrinta ku noqotay mid dhabanahaysa ayaa waxa ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wada xaajoodaan maadaama ay daris yihiin ayna wax ku doonayso is-afgarad ayna rabin wax xoog lagu qaadan karo waa mahadsantahay daawada haddii halkaan nala soo gaartay share like comment inta baa noo saar waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalka